magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta si weyn u soo dhaweysay isla markaana isugu soo baxday wafdi ballaaran oo hogaaminayay madaxweynaha maamulka Khaatume State Cabdiqaadir Firdhiye oo subaxnimadii saaka ka soo kicitamay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wafdida madaxweynaha oo ilaa xalay diyaargarowgooda uu ka socday magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka kubadda cagta ee Xabada Stadium ee magaalada Buuhoodle, halkaasi oo ay ku sugnaayeen boqolaal dadweyne ah oo ruuxaya calanka Khaatume State iyo sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka deegaanka. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Cayn iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. madaxweynaha maamulka Khaatume Cabdiqaadir Firdhiye oo goob fagaaraha dadkaasi kula hadlay ayaa sidoo kale uga mahad celiyay oo lambar 1 ka iyo ciidamada bilayska iyo ciidamada daraawiishta aad iyo aad baan idin soo dhaweynayna. aad iyo aadna waad u mahadsantihiin.